بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني أخواتي في الله caawa waxaan doonayaa shay aan wada raadinayno inaan insha allah idinku baraarujiyo. qof kastoo anaga naga mid ah wuxuu doonayaa adduunyoy sidee noogu imanaysaa marka adduunyada sidee noogu imanaysaa adduunyo sideen ku kasbanaynaa adduunyo sideen ku helaynaa adduunyo waxaa lagu helayaa bal caawa iga dhagaysta baaraka allahu fiikum maxaa adduunya lagu helaa sidee adduunyo noogu imanaysaa iyadoo ordaysa sidee adduunyo noogu soo jeesanaysaa adduunyadan aan ceyrsanayno ama aan dabacararayno oo aan gaari la'nahay sideen ku gaaranaa sideen ooga cararnaayo nooga soo dabacarartaa iyada qof walba maanta isagaa adduunyo dabacarara laakiin adduunyo sidee adiga kuu dabacararaysaa caawa ujeedadan usoo galay waxay tahay marka ama aan hortiina usoo fariistay ama aan ooga muuqda waxay tahay adduunyo sidee adduunyo noo daba ordaysaa sidee adduunyo nooga soo daba carartaa bal ila dhagaysta xadiidkan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay man kaana hamuhu alaakhira jacala allahu lahu shamlahu wajacala ghinaahu fi qalbihi waatathu addunya raagimatan waman kaanat hamuhu addunya فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له إلا ما كتب الله له. والحديث كان بل إلى دقيسته إلى معان سبع نبي قوله صلى الله عليه وسلم قفكي الدنيا الربا قفكي آخر الربا وح ألا لوحو دونايو uu ilaahay subxaanahu watacaala u tala saarta habeenkii ama subaxii waa bariista ama habeenkii seexda isagoo qalbigiisa waxa ku jira uu yahay raaligelin ilaahay subxaanahu watacaala iyo daaca uu ilaahay subxaanahu watacaala uu ateecayo qofkaasi ilaahay subxaanahu watacaala baa arrimihiisoo dhan intuu qalbigiisa wax allala wixii khayr u ahaa ilaahay baa qalbigiisa ku kulminaya khayrka oo dhan baa ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiisa ku kulminaya oo qalbigiisa nuur buu ilaahay gelinayaa iyo iftiinkaa khayr mooyaane wax xun oo ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala macsiyadiisa sababaya qalbigiisa ma farayo qalbigiisa nuurka uu geliyay dartii nuurkaa khayrka ah ee iftiinka ah wanaag mooyaane xumaan ma farayo kow haddana ilaahay subxaanahu watacaala ayaa qalbigiisa wuxuu ka dhigayaa mid hodan ah oo qani ah ilaahay baa qalbigiisa qani ka yeelaya oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi laysa alghinaa bikahrati almaal wa inama alghinaa ghina annafs qaninimadu ma aha uun xoolo badnaanshiyaha iyo xoolo badnaanta ma aha laakiin qaninimada ama qaninimada waa qaninimada qalbiga wey marka ilaahay baa qalbigiisa qani ka dhigaya qofkii marka allaala markuu ilaahay qalbigiisa qani ka dhigo adduunyana ayadoo doonaysa ayay usoo ordaysaa adduunyaa kuu soo jeedsanaysa kuu soo cararaysa markaa oo micnaheedu ma aha oo adduunyaha doonanin asbaabta la kaalay waayo ilaahay subxaanahu watacaala famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqihi soo ma oran adduunyo daafaheeda iyo dhinacyadeeda socda oo wax allaale wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala arsaaqa oo ilaahay dhulka dhigay asbaabteeda la kaalaya oo socda arsaaqada raadiyo ilaahay subxaanahu watacaala yidhi laakiin ilaahay ma oran asbaab la-aan risqiga hala dalbo oo hala raadiya maaha oo risqiga dalab buu u baahanya shimbirka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu arsaaqaa marka uu tago isagoo markaa calool maran buu aruurtiina baxaa galabkiina wuxuu soo hoydaa isagoo calooshiisa buuxda yaa arsaaqi allah subxaanahu watacaala marka waxaan u jeedaa adigoo ku kalsoon alle subxaanahu watacaala risqiga uu kuu qorayna garanaya oo og baa haddana sababtii la imanaysaa oo sababta aad la imaanaysa iyo acmaashaadoo dhan mid ilaahay subxaanahu watacaala raali ka yahay unbaad ka dhigaysaa kolka ilaahay subxaanahu watacaala arrimihiisa
arrimihiisa ilaahay subxaanahu watacaala qofka uu ilaahay u dhiibto oo arrimihiisao dhan ilaahay u tala saarto daaco ilaahay uu ula yimaado ilaahay subxaanahu watacaala adduunyau agtiisa keenaya qofkii adduunyaa kuu soo cararaysa walaal waad jeceshahay inay adduunya kuu soo cararto marka adduunyu haddaad doonaysid inaad gaarto hamigaaga aakhira ka dhig oo hamigaaga daaco ilaahay ka dhig hamigaaga raaligelin ilaahay ka dhig hamigaaga camalfal lagu camalfalayo diinta ilaahay ka dhig hamigaaga raacid iyo markaa hoggaansanaan loo hoggaansamayo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo nebiga ku dayashaha kuu noqdo oo isaga ku dayo intaa haddaad samayso adduunyaa kuu soo cararaysa risqigana inuu alla bixiyo garo ilaahay subxaanahu watacaalana taladaada u dhiibo isagana adeec oo ilaahay subxaanahu watacaala isaga adeeco u hoggaansan baaraka allahu fiikum hamigaaga hadduu aakhiro noqdo adduunya way ku imanaysaa haddana cagsigeeda u fiirso nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyihi waman kaanat hamuhu addunya qofkii hamigiisa uu adduunyo noqdo oo hamigiisa adduunyo keliya noqdo faraqa allahu calayhi amrahu arrimihiisao dhan ilaahay baa kala geynaya oo arrimihii uu islahaa isku hagaaji isqabadsii markaasaa waxaa la maqlayaa arrimahayga maxay iskugu kii qabanlaayihiin maxay waxaan oo dhan iigu dhacayaan hamigaaga adduunya ah oo hamigaaga aakhira ka dhig oo hamigaaga aakhira ka dhig waxaa laga wadaa hamigaaga adduunyo keliyaha ka dhigin oo camalkii aakhiro oo aad ku badbaadi lahayd samayso adduunyadaadana samayso waayo ilaahay subxaanahu watacaala muxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi rabbanaa aatinaa fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة إلهي الدنيا وناك آخرنا وناك لكن همك هدو أدون النغضة إلهي سبحانه وتعالى وحد أغاتا إنه الدنيا ذا كاكرة تكسينيو وهي إلهي وحد ليهي من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه قفك آخرة بيرشد إذا دونايا والأكر لينا قفك الدنيا مركا بيرشد إذا رغنا وانصيرنا آخرنا نضيفكم لها مركا وضع أركيسا مركا إلهي بأرميه سكرة تكسينايا فقرنا إلهي سبحانه وتعالى أيا هرتيسا كينيا إلهي با سبحانه وتعالى با وح الله لا وحد هيستبا إلهي با وحو كاغا يريا مر هدو همي كاغا آخرا الدنيا ونقضي همي كاغا هدو أدون نقضو إلهي با وح والبابا كاغا لغايا وح مركا آن هرمر لهين وح آن نفسي لهين أو فقري oo marka aad adigana ka qado reerkaagana ay ka qadaan dadkaagana ay ka qadaan naftaaduna ay ka qado faqriga lagu sheegayo waa qofka inuu faqiir ka noqdo oo ka baahanaado xoolihiisa marka qof baan aragnaa maanta ayagoo xoolahooda ka baahan oo aanan cunaynin sabab hamigiisa adduun ah markaasuu ilaahay faqrigiisa markaa hortiisa ama indhihiisa u keenay marka ilaahay baa indhihiisa faqriga u keenaya oo faqriga o dhan buu ilaahay indhihiisa hortiisa dhigaya markaasaa adduunyana kama soo helayo ilaa ilaahay wuxuu u qoray mooyaane adduunyana kama helayo oo kama qaadanayo oo kama dheefsanayo mana ka faa'iidayo ilaa wuxuu alle subxaanahu watacaala u qoray mooyaane baaraka allahu fiikum hamigaaga adduun oo keliyaha ka yeeline hamigaaga adduun iyo aakhiro wada socdo ka yeel haddaad intaa samayso ilaahay baa adduunye kuu soo jeedinaya oo ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisana adduunyadaada ku wada baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra adduunye haddaad doonayso iyadoo ordaysa inay kuu timaado hamigaaga aakhira ka dhig baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayra wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh